waddankan Ingiriiska ayaa guud ahaanba malaayiin ardayda waxa la guddoonsiiyay natiijada shahaadada GCSE-da loo yaqaano ee dugsiga sare. sanadkan ayaa boqolkiiba in ka badan 80 waxa ay ku baastay natiijada A star ilaa iyo C. haddaba dugsiga Iqra oo ah dugsi ay maamulkiisa gacanta ku hayaan waalidiin iyo mas'uuliyiin Soomaaliyeed sidoo kalena ay wax ka dhigaan macallimiin muslimiin oo isugu jirta Soomaali iyo muslimiinta kale ayaa kamid ahaa dugsiyada ardaydii dhiganaysa iyagana la siiyay shahaadooyinka iyagoo oo ay dugsigaasina in ka badan boqolkiiba 80 ku baaseen natiijada A star. wariyaheena Maxamed Khadar ayaa faahfaahinta warkaasi inoogu diyaariyay stuudiogeena magaalada London. boqolkiiba 80 in ka badan ayaa ardayda dhigata dugsiga Iqra oo ay maamulkiisa gacanta ku hayaan mas'uuliyiin iyo macallimiin Soomaaliyeed ayaa ku baasay natiijada A star ilaa iyo C. waa kuwan qaar ka mid ah macallimiinta, waalidiinta iyo ardayda oo cabiraya shucuurtooda. magacayga waxaa la yiraahdaa Sahar Saalax Cali waxaan ka mid ahay aasaasyaashii aasaasay Iqra Islamic Academy. ujeedadii loo aasaasay hadaa wax yar ka taabto waa inaan ka baxno baahida waxbarasho oo caruurteena ay ku qabaan iskuulaadka dhibaatooyin badan oo nagu haysata waxbarashada wadankan. hadda ilmaha noo dhigta sanadkan ciyaalka dhigta tiradooda waxa weeye 120 ciyaala 140 cunug ayaa imtixaankii noo galay. waxaana imtixaankii boqolkiiba 80 ciyaalkii waxay ku baaseen A star ilaa iyo C inta u dhaxaysa. la yiraahdaa Anisa caruurteedu halkan ba ii dhigataa. waxaan ahay mar waan ka shaqeeyaa meesha, marna caruurteedu tuition haan ba ii dhigtaan. gabadheedu ma sha Allah maanta darajo aad iyo aad u sareysa ayay ku baastay. wax Ilaahay loogu mahadiyo. ana u mahadinaya dadka aasaasay iskuulka. It was good being at Iqra. Alhamdulillah, I'm still waiting for the results. And inshallah I'll pass them. Iqra is a good school and it's the best school in London. My name's Dawood Gibson. I'm part of the staff of Iqra Academy. We've worked very hard this year and the students have been working very hard and they've come in today and they've really very happy with their results. Also the parents are very appreciative of all the hard work that they've been doing and of the staff that have been supporting them throughout the year. I would like to personally say that I've really enjoyed working with the students. They've been very dedicated and they've been showing their appreciation. magacaygu waa Zainab Daahir. Nusrat Iqbal. waxaanu ka soconaa Iqra Islamic Academy. marka hore waxaan doonayaa inaan idin wada salaamo dhammaantiin. maanta bish waxay ahayd 20 bishii August waxay ahayd maalintii caruurta loo soo dhijiyay natiijooyinkii GCSE examinationka caruurtii sanadkan ka baxay. alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay waa noo roona. caruurta way dadaaleen, waalidku way faraxsanaayeen. alxamdulilah dadaalkii badnaa ee maxaan ku raadin lagu soo jiray sanadka wuu noo midho dhaliyay. ilaah baa mahad leh. ugu dambeyntii Mukhtaar Sheekh Cusmaan ayaa gabagabadii ka hadlay waxa ay damacsan yihiin mustaqbalka. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta xafladda halkan ka dhacday natiijadii ardayda imtixaanaadka sanadka oo in badan oo kamid ah ay keeneen natiijooyin runtii aad loogu farxo. iskoolkan Iqra oo imika Iqra Islamic Academy oo imika furnaa muddo 4 sano ku dhow ayaa waxa loo faray ummadda Soomaaliyeed, ummadda muslimiinta in caruurtu waxna ku bartaan kuna badbaadaan. maanta natiijada waxa ku jirtay dadkeena intaas oo A star, intaas oo A, intaas oo B. waana waxayna had runtii wax lagu farxo. muhiimadda iskoolkan loo aasaasay kadib oo in badan maanta laga hadlay, waxaan doonayaa inaan wax yar ka taabto barnaamijka sanadka soo socda iyo qaabka isbedelka aan ku sameynay. Iqra sanadkan oo Iqra horta ah iskool islaamik ah oo madax bannaan oo ah xarun imtixaanaadka lagu qaado. facility-ga ama waxyaabaha halkan diyaarka ku ah waxaa kamid ah qolka science-ka oo aad modern u ah, diyaarna u ah, wax walbana yaalaan, ama science laboratory oo ilmuhu ay ku sameyn karaan experiments-ka iyo tijaabooyinka iyo habcurinta iyo wax walba oo loo baahdo. waxaa kaloo iskoolkani leeyahay qolka computer-ka oo ilaa 20 computer ardayda diyaar u yihiin inay wax ku bartaan. waxaan sanadka iskoolka ku siyaadinay oo insha Allah taala mar dhow ka mardu qaban doontaa
qayb cusub oo loogu talagalay gabdhaha oo ka baxsan dhismahan weyn marka insha Allah sanadka soo socda ilmaha A levelka ah iyo dumarka gabdhaha yar sanadka 11aad iyo sanadka 10aad ku jira waxa yeelan doonaan dhismo gooni ah oo ka baxsan dhismahan imika aynu joogno Maxamed Khadar, Home Cable TV, magaalada London.